الرحيم waxaan runtii ku faraxsanahay waxaan ka cudur daaranayaa madax badan oo halka ka hadli lahayd roobabka jira awgiis darteed in la soo gaabiyo barnaamijka iyo fan badan oo halka laga sii deyn lahaa marka ugu horeysa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ku xigeenkiisa xubnaha golayaasha dawladda iyo dhammaan martida kaleeto ee halka isugu timid waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad weyn bay ii tahay inaan maanta kulankii ugu dambeeyey ee isu soo baxa ururka ka ah inaan ka dhigo magaalada baran aan uga qayb galo waxay gelinaysaa farxad weyn waxaan uga mahadcelinayaa salaadiinta iyo bulshada reer baraneed sida qiimaha iyo qadarinta leh ay noo soo dhoweeyeen waxaan ku faraxsanahay waxyaabaha ka muuqda shucuurta iyo farxadda ka muuqata dadka oo runtii ahayd mid aad u ballaaran oo wanaagsan dhammaantiin waxaan runtii iyadoo roobaboowa aan rabaa inaan uga faa'iidaysto ma ismaqlaynaa ururka ka guul baran Soomaaliya Puntland guulaysta idinkana waxaa runtii farxad weyn noo ah inaan maanta kulankan qiimaha leh ka soo qayb galno roobkii oo nasaaran awgiis waxaa nagu filan haddaan reerkaan nahay sida diiran ee ashara noo soo dhowayseen iyo sida qadarinta leh ay isu soo baxdeen waxaan rabaa halka inaan ka soo sheego magaaladan oo ah magaaladaydii magaalo aan jeclahay magaalo muujisa ilbaxnimo iyo xadaarad dheer waxaan kulligiin inigu bishaaraynayaa horumarka ugu horreeya nabadgelyada iyo kala dambaynta iyo wanaagga aad gaarteen waxaa dawladda Puntland runtii sharaf weyn u ah jidkii bilowday waxaan aqbalay codsiga dhallinyarada garoonkan waxaan ka dhigi doonnaa mid cagaaran garoonkan waxaan ka dhigaynaa garoon caraaran mar dhow ilaahay idankiisa waxaan kaloo ballan qaadaynaa intaan joognay 40 kiiloomitir oo laamiga ah inta ka dhiman oo ilaa hadaaftiba ah muddo ka yar 2 bilood ayaan bilaaban doonaa iyadana waa ballan qaadaynaa ilaahay idankiisa waxaan rabaa inaan waxyaabo badan aan kulamada mas'uuliyiinta iyo waxgaradka u daysto waxaan rabaa maadaama roobkii soo dhow yahay isi soo bixina waa iniga mahadcelinayaa dimuqraadiyaddu waa dhaqaaqday dimuqraadiyaddu sama dhaqaaqin codkiinna soo dhiiban maysaan 25 soo ballan ma aha soo kulligiin u dareeri mayno caalamku ha ogaado Soomaaliya ha ogaato cid walba oo dhace Puntland ha ogaato waxaynoo ballanaa inaan horumarkeenna ka shaqayno Soomaalinimo doonno midnimada aan ka shaqayno Soomaaliya cidda kala go'a wadda ka yeeli bayno soo maaha ballanteenna soo midnimo maaha laascaaro soo ina xorowda maaha soo inaan wada guulaysanno maaha intii aan meel maraayay dadweynahoo dhan waxay u ooman yihiin iyo dhallinyarada waayeelka cid walba siday codkooda ugu cilbixi lahaayeen oo u guurlaysan lahaayeen waxaan idiin rajaynayaa guul xisbiga ka ballanteennu waa guulaysta 25 noo ballana reer barameedo waxaan rajaynaynaa annagoo guulaysanay inaan halka ku xadfadayno aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan hortiinna soo safo murashaxiinta ay ururka ka u soo xusheen inay ahaadaan golaha deegaanka ma taageerteen musharaxiinta ma taageerteen codkiinna ma siiseen wax badan baan u soo safray inaan codkiinna inii weydiiyo golaha deegaanka ma siiseen codkiinna